wariyaashii waxa laga dhigay in la xidhxidhay in cabsanayso oo afka la qabtay iyo in baxsada warbaahintu waa institution waa hay'ad sharci u haysata inay dalka ka howlgasho wariyuhuna wuxuu liisan iyo mandate u haystaa inuu soo tabiyo warbixinaha haddii lagu ixtiraami waayo shaqadiisa dee waxay noqonayaa dalku dal muxuu haayay aan warbaahintu ka hana qaadin bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta waxaan halkan kaga hadlayaa anigoo ah Sakariye Sheekh Maxamed Sakariye Jeylaani gudoomiyaha ururka saxaafadda Soomaalida dalka Jarmalka تعديجا يحرجا برشة غير سومالي لان جارهان وربعينتا ومدوين كودن بيجي نقضي مد صون ونوضع حكومة السومال لأنها أي أنت بدن معين بدو إنقف كستو وريا هو برشة وحلو داجا أم ورلو داجا اللوجو هنشبو أم اللوجو نحو هاي اللو أديك سدو ود عيدا كا يضو حبس قال دقيقة وارن لعان شرع لعان دستور شبين يضو عرين تاسعيت هاي runtii waad ogtihiin muddo 4 cisho ah waxa hadda ku xidhan magaalada Berbera wariye Horyaal TV oo uu soo xidhay haamaha shidaalka magaalada Berbera oo runtii wariyahaasi wuxuu ku xidhan yahay cadaalad darro wuxuu ku xidhan yahay qaladkaas uu ku xidhan yahay waxa cadeynaya wariyuhu qaldami karaa waa bilaadan laakiin qaabka qabashadiisa iyo ilaa imaka inaan maxkamadii ay diiday tiraaday fayl dacwadeedba uma wadaan wariyahana soo xidhateen waxa weeye noo xidhnaan maayo wariyuhu wuxuu ka hadlay haddaan idin faahfaahiyo arrin muxuu ahaayay musuqmaasuq oo lagu soo eedeeyay maareeyaha haamaha shidaalka ee magaalada Berbera kaasi oo sida la sheegay lunsaday ama hakiyay lacago ku jiray miisaaniyad sanadeedkii golaha wakiiladu ansixiyay oo loogu talagalay boodhinada iskuulada boodhinada ah gobolka Saaxil ardayda in lagu kabo iyo iskuuladaas lagu kabo wariyuhu intaas uu ka hadlay markii arintaasi soo baxday ee bulshada gaadhayna si codka wariyaha iyo codka dadka muxuu ahaay dhibanaha ahba loo aamusiyo maareeyo wuxuu isku dayay inuu awood ciidan adeegsado waxa leeyahay mudane madaxweyne iyo xukuumaddaada adiga xukuumaddaadaba haddii aad sii wadaan xarigan iyo caburintan wariyaasha loo geysanayaa waxay dhaawici doontaa oo muxuu ahaayay ay barmadow ku noqon doontaa dimuqraadiyaddii iyo hanaankii dastuuriga ahaa ee Somaliland xaqa iyo xuquuqda kala duwan siinaya institutionada warbaahintu waa institution waa hay'ad sharci u haysata inay dalka ka howlgasho wariyuhuna wuxuu liisan iyo mandate u haystaa inuu soo tabiyo warbixinaha haddii lagu ixtiraami waayo shaqadiisa dee waxay noqonayaa dalku dal muxuu ahaayay aan warbaahintu ka hana qaadin maanta wariyaal badan baa banaanka jira wariyaal badan baa baxsad ku maqan dalkoodii iyo amniga oo aan colaadi ka jirin ayay baxsad kaga maqan yihiin haddii aynu arinta muxuu ahaayay saa ku sii socoto waxa dhici doonta in Somaliland qof hadle la waayo maanta waad ogtihiin wariyahaas uu xidhan yahay xataa الآن muxuu ahaayay way yar tahay in warbaahinta Somaliland xataa ka hadasho oo laga hadlo sababtoo cabsi la qabo wariyaashii waxa laga dhigay in la xidhxidhay in cabsanayso oo afka la qabtay iyo in baxsada sidaana wadan dimuqraadiya wadan muxuu ahaay xorriyatul qowl ka jira kuma dhisnaanayo xukuumadda waxaan leenahay maalmaha idii hadhay ha noqdaan maalmo dastuurka iyo dimuqraadiyadda iyo kala dambeynta nidaamka Somaliland ixtiraamtaan